الرحمن الرحيم waxaan joognaa magaalada Nairobi waxaan maanta aan la kulanay gabar Soomaaliyeed oo guban oo ku nool wadankan Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxaan su'aasha ugu horeysa aan weydiin lahaa gabadha magaceeda Faadima Axmed Macalin imis sana ayaa jirtaa 17 sano jirtaa maxaa kugu dhacay saan maxaa ku gubay wiil ay ku gubay sababta ku gubay maxay tahay oo iga maseeray وكام سيري ninkaygu ahaa marka si ahaan si ku gubay way iga maseeray gaas ana subaxeed waa kacay jika galrab quraaca ka rabay telefoon ay soo dhacay telefoonkii qabtay telefoonka inta ku sii jeeday marka soo jeestay gaas ii taraq gaas oo shab igu sii taraq igu soo tuuray dircu iiga dhig waa ku holcay albaabkan uu xirna waana seexday marka daadada meeqa jirtaa 17 sano 17 sano jirtaa okay marka maxaa la ii sheeg sababta maseerka macnaha maxaa keenay soo kaaga maseeray wiil hadda koor kala tagna soo wacayo ka maseeray ana wiil kala tagtan hore macnaha oday ninka la hore isku qabteen kala tagteen ana 14 jir ay ku daray adi 14 sano jir lagu daray macnaha nin horeeto aw ninka horeeto marka macnaha ii sheeg guursatay oo maqaaya ma joogo intuu joogaa marka Mareykanku joogaa aw asiga odagaaga ma garanayo oo dhuntay marka macnaha meel ku sugan yahay lama oga ma la joogo meel ku sugan yahay okay marka dhibaatada kugu weyn aad ku haysatay maxay tahay meetadii waan gacmahayga waxaan ku qabsan kari cid meeshaan ii joogto oo aabe waa dhintaan qof ma ii joogo kaliya joogta aabi hooyo ma leeyahay walaalo ma leeyahay laakiin meel ma ku og gacmahaaga ma fidin kartaa maya okay gacantaas midigta isku day inaad fidisid ma fidi karo gacanta macnaha isku dhagan tahay miya okay macnaha dabka keenay xididada isku dhagan okay xididada macnaha marka jirkaaga dhan hoos dhan uu gubtay inta qoorta isku dhagan tahay gacanta marka xabadka hoosana uu guban yahay kulli way wada gubtay eber waa hal meel miifa marka maxaa xanuun ma dareentay ma seexdi ka saca gacmaha la saaray marka si xanaay maxaa ka codsanay ummadda Soomaaliyeed in la caawiyo meeshaan dad ma ii joogo agoon iyo raja ahay gabadhan iskala noolaha gabadhan ku caawisimaa gabadhan intii degantahay ma ayadana okay marka maxaa guriga gabadhan askar guriga ku nooshaa miya gabadhan iskale gurlaana tahay Faadima Axmed Macalin waa gabar yar macna daadeedana si hadir noo sheegtay macna ii sheeg waxay dhahday 17 sano ay jirtaa waxay kala hore noogu sheegtay macna in hore loogu daray ayadoo 14 sano jirta ninkaasna ay kala tageen kadibna ay nin kala guursatay ninkii dambe ay guursatay ayaa macnaha si noo sheegtay macnaha maseer daraadis ayuu u gubay marka gabadhan waxay ii sheegtay kala inay gabar ay tahay agoon ah aabeedii hooyadeeda dhinteen oo macnaha ii sheeg meeshaan qof u jooga aan jirin waxay la nooshay gabadhan hadirtaan ugu imaanay guriga marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u soo bandhigeynaa macnaha meel kasta ay joogaan wixii ay ka caawin karaan gabadhan Soomaaliyeed oo dhibaataysan inay kala soo xiriiraan macnaha telefoonkeeda oo shaashada ku qoran ama ha ahaato macnaha ii sheeg lacagtii loogu sameyn lahaa operationka qarashka loogu sameyn lahaa ama ha ahaato macnaha sidii ku heli lahayd ii sheeg leen macnaha dibadda ah oo macnaha ii sheeg dhaqaatiir si ay ugu sameeyaan macnaha plastic surgery macnaha xubnaha jirkeeda xataa taranka hadirta marabna inaan shaashada ka soo saarno xataa waxa ka gaaray macnaha ii sheeg dhibaato aad u weyn waa gabar yar saadadeeda u jeedin marka ummadda Soomaaliyeed macnaha waxaan aad iyo aad macnaha si aan hore uga baranay inay caawiyaan gabadhan macnaha Soomaaliyeed oo dhiban oo macnaha ii sheeg dhibaatadaas ay gaartay aad hadda u jeedin marka insha Allah waxaan rajeynayaa in macnaha ii sheeg aad la soo xiriiri doontiin wabillahi tawfiiq